Tuuladan yar waxaa ku wada noolaan jiray Asma yar, aabaheed iyo hooyadeedba. Isla markaana Asma yar hooyadeed waxay ahayd mid aad iyo aad u qaylo badan. Hase ahaatee Asma yar waxay ahayd ina yar oo miskiin ah, isla markaana fariid ah, hawsha gurigana si wanaagsan u qabsata. Maalin maalmaha ka mid ah, Asma yar waxay u dulqaadan weyday qaylada hooyadeed, isla markaana waxay iska soo qabatay xagga iyo beer yar oo gurigooda ku ag taallay. Isla markaana beerta waxaa ku dhex yaallay geed camba ah. Geedka hoostiisa ayay iska hoos fadhiisatay. Kadibna xoogaa markay geedka hoos fadhiday ayaa waxaa ku soo dhacay niyaddeeda geedka maad waraabisid. Kadibna waxay bilowday inay geedkii waraabiso. Hase ahaatee geedka waxaa ku dhex jiray gabadh jinniyada. Asma yarna may ogeyn gabadhii jinniyad ahayd. Markii ay geedkii Asma yar waraabisay aad bay ugu faraxday, waana ku qososhay. Hase ahaatee wax yar kadib ayay dibadda u soo baxday, waxaana iska dhigtay gabar yar oo bilaadan ah. Kadibna waxay damacday inay la saaxiibto Asma yar, waana soo ag fadhiisatay. Way isbarteen. Waxay ku tiri anigii magacaasa la yidhahdaa, adna magacaaga sheeg. Kadibna wuu u sheegtay. Hase ahaatee sidii ayay ku saaxiibeen Asma yar iyo gabadhii jinniyad ahayd. Kadib markii ay isbarteen ayaa Asma yar waxaa ku tiri walaal waan sii tegayaa, maxaa yeelay hooyaday bay ku qaylinaysaa haddaan soo habsaamo. Kadibna markay ka tagtay Asma yar, gabadhii jinniyad ahayd waxay soo xasuusatay ayna bilowday inay fikirto gabadhan yar say u wanaagsan tahay, isla markaana ay geedka ay ku dhex jirtay ay u waraabinaysay. Hase ahaatee maalin walbaba Asma yar intay geedka hoos timaado ayay waraabisaa geedka. Maalintii dambe ayay gabadhii jinniyad ahayd way fikirtay, waxaana is tiri bal soo eeg halkay ku nooshahay Asma yar. Kadibna way soo duushay gabadhii jinniyad ahayd, waxaana soo qabatay xaggii gurigooda. Isla markaana waxay aragtay intay daaqadda soo istaagtay Asma yar hooyadeed oo ku qaylinaysa, isla markaana aad u canaananaysa. Kadibna Asma yar waxay iska soo hor fadhiisatay halkii yara daaradda. Kadibna waxaa lagu yidhi orod weelkaas soo xal. Hase ahaatee Asma yar oo iska murugaysan ayaa waxaa u timid gabadhii jinniyad ahayd. Isla markiiba alaabtii way maydhay, iyadoo arkaysa ayay alaabtii wax ka siisay. Kadibna way soo carartay wayna dhex gashay. Asma yar ayaa waxa ay la soo baxday kadib markii gabadhii ay gashay dabeecad kale, iyadoo qolka fadhiga iska fadhida tiifigana daawanaysa, halkii hooyadeed ay fadhiisan jirtana iska fadhida oo aanay weligeed soo fadhiisan jirin. Ayay hooyadeed u timid, waxaana ku tiri sidai caadada u ahayd maxaa halkan ku fadhiisay, maad shaqada guriga qabsatid, iyadoo qaylinaysa. Kadibna waxay tidhi maxaa kaa galay, maxaad doonaysa adigu? Su'aalaha qallafsan ayay ugu jawaabtay. Kadibna Asma yar weji kale ayayba la soo baxday. Isla markaana waxaaba ay bilowday inay hooyadeed ay beddeshaba arrintaas oo aad iyo aad u foolxun. Marka innaga dhaqankeena loo eego, qofku wax dilayaa oo sidaas oo dhan hooyadii u dilayaa maaha Asma yartii caadigeed ee waxa weeyaan gabadhii jinniyad ahayd ee Asma yar saaxiibada ahaayeen. Hase ahaatee dhowr cisho ilaa iyo 3 cisho ayay sidaas kolba ku samaysaa. Balse maalintii dambe Asma yar oo halkii iska jiifta ayay waxa u sheegtay aabaheed. Kadibna hooyadeed waxay soo qaaday baashii dhulka lagu xaadhayay, waxaana ku tiri kaale xaadh, kaale noo shaqeeyo. Hase ahaatee way diiday, ileen gabadha waxaa ku jiraba jin baa ku jiray. Kadibna aabaheed ayaa u tegay, waxaana ku yidhi kaale aabbo hawsha noo qabo. Balse arrintaas way diiday. Hase ahaatee waxaa ka soo baxdayba gabadhii jinniyad ahayd. Isla markaana waxay intay soo duushay waxay ag timid hooyadeed iyo aabaheed. Isla markaana way canaanatay, wayna ku qaylisay, waxayna tidhi inantan yar aniga ay saaxiibtay tahay,
waana ina yaroo fariida, waa ina yaroo wanaagsan. Iminka kadibna haddii aad dishaan ama wax yar canaan aad u samaysaan ama aad canaanataanba, waxa weeyaan idinka ayaa isku dhigay wixii laydinku dhaca. Asma yarna arrintaas way ku farxday, isla markaana waxay tidhi waan kuu soo sheegayaa haddii hadda kadib hooyaday canaanato. Hase haatee sheekadan annaga dhaqankeenna way ka hor imaanaysaa. Keliyaata madadaalo ayaan u soo qaadanay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.